Maryaha wakaalada biyaha ee magaalada Berbera Salebaan Cabdi Looliye oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka warbixiyay biyo yaraan soo food saartay magaalada Berbera xaafadaheeda qayb ka mid ah waayadan dambe waxaanu sheegay maarayuhu in sababtaasi biyo yaraanta keentay ay tahay shan ka mid ah ceelashii biyaha siin jiray magaalada Berbera oo guray kadib markii roob di'i waayay isla markaana dixdii biyaha ay ka iman jireen u daad soo mari waayay sidoo kale maarayuhu waxa uu ka warbixiyay beebka qadiimiga ah ee magaalada Berbera biyaha keena kaasi oo ah mid bira isla markaana had iyo jeer meelo badan ka jaba taasina ay dagaal joogto ah kula jiraan ka maamul ahaan waxaanu maarayuhu sidoo kale xusay in xilligan lagu jiro muusimkii xajka biyo aad u tiro badan ay isticmaalaan xoolaha magaalada Berbera imanaya isla markaana laga dhoofinayo dekada magaalada Berbera waxaanu maarayuhu sidoo kale warbixin ka bixiyay xaaladda guud ee biyaha magaalada Berbera bismillaahir rahmaanir rahiim saxaafadda dhamaantii waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib kulley saaka aan idin yeedhay oo waxaan idinku yeedhnayna waxa weeyaan kulle xaalad baa baryahan magaalada ka jirta xaaladaasuna waa xaalad biyaay oo sidii la wada soconnana saxaafaddu dee waa adeega ugu badan bay bulshada u hayaan hadba waxa jira baanay gaadhsiiyaan bulshada shaqada loo hayo sidaa daraaddeed waxaan jeclaystay maanta inaynu la wadaagno waxa inagu soo kordhay way ugu badan tahay cabasho xagga biyaha oo maalmahanba magaalada ka taagnayd taasuna waxay kaliftay oo ugu weynaa waxa weeyaan waxyaabo badan oo aan jiri jirin oo xagaagan soo kordhay baa jira si loo wada soconno Berbera waa meel xeeba waa meel kulul oo dadka ku noolina aanay u adkaysan karin biyo la'aan iyo laylaantoona hase ahaatee waxa sanadkan nagu soo kordhay raxmaadkii eebe oo runtii ama sanadkii ugu dambeeyay aan diinoon magaalada ka diin ama aan idhaahdaba dooxyada ay ceelashu ku yaalaan taasuna waxay kaliftay in ceelashii qaar badan oo ka mid inay biyahii ay istaagaan qaar badan oo ka mid inay biyo yareeyaan annagii oo mar walba dadka la dareena oo mas'uuliyadda iyo adeegaasu muhiimad u leeyahay bulshada dareensan oo habeenii maalin adeegaas sidii uu bulshada u gaari lahaa ugu quruxda badnaan lahaa ugu filaan lahaa annagu had iyo jeer ku dadaalaynaa haddana qadarka ilaahay ba iska leh wax ka weyni ma jiraan gacanta ilaahay taana waxay noqonaysaa uun markuu roobido inaynu baahida dhammaantiin aynu ka wada baxayno qodobka labaad ee inoo raaca waxa weeyaan xaalad horta werwero maanta taagni ma jirto laakiin wuxuun baa jiro uun biyo yaraan Berberi waa 4 sayd bay biyaha ka heli jirtay 4ta sayd ee biyaha ka hesha waxa weeyaan Dubaar oo originkii magaalada ahaan jirtay biyo yaraan adka Faradeero oo maynka ugu weyn ee kaamamka ugu weyn ee biyaha laga soo saaro oo 7 ceel ku yaaleen 3 ka mid ah ceelashaas maanta caadi uma shaqeeyaan 2 ka mid way istaageen midna wuu biyo yareeyay marmarka qaar bala saaraa 5 ka mid bay macnaheedu tahay inuu midi marmarna raacayo marmarna uu ka hadhayo systemka waxa kaloo jiray kalgumare oo 3 ceel oo ay DB wel naga caawisay ayaa jiray sayidkaas uu total weyn naga istaagay 5 bilood ugu dambeeyay inuu mu shaqeynin 2 ceel oo siday mashiinkii meesha waqtiga la dhigay iyo mid solar oo isagu maalintii u shaqeyn jiray bamkiisuna heerkiisu aad u yar yahay labadii mashiinku uu siday bamamkii diinabada ku jireen kuwaas way naga istaageen hal mid oo kamid ah baan imka mashiin yargeeno marmarka qaar aanu yareystaana markuu dhowr 3 bilood ee ugu horreeyay markuu aanu ka xidhnay aanu systemka ka reebnay suusa yar maaxo bedelkiisa waxaanu sameynay kala jab oo runtii 4 ceelood ka wada warhayseen oo muddo badan aynu sugaynay oo magaaladu ay u baahnayd biyaha 4ta ceel dawad garan kartaan marka si taxadir leh shaqada loo bilaabo iyo markaad si degdeg ah oo ku talagal ahayn in loo istaaro mashiinkii iyo systemkii biyaha magaalada loo soo gaarsiinayay runtii 2 bilood ugu dambeeyay markuu shaqeynayay systemka 4ta ceel waliba 3 ka mid ah imka magaalada soo raacay kii kalena imka lagu guuleystay shaqadiisii oo soo raacay ama rajeynaa wiiga soo socda biidmillaahi kariim xaaladda guud ka jirta horta ceelashii waxa gaayay biyo yaraanta waxa kaloo iyaduna ina soo raaca xilligan xagaaga iyo muusinka xashka xoolo badan baa magaalada soo mara xoolahaas waxay naga qaataan biyahaasuna runtii sanadadii aan odhan karno ugu ciriiri badnaayeen oo xoolo badan oo biyo badan helaa ma jiraan hase ahaatee had iyo jeer haddana si kastoo lagaga maarmi karo waxaanu sameynay
ceel kaloo halkan tuulo barwaaqo ku yaalla oonu soo dhaweynay isaguna oo biyaha looga soo dhaaminayo kaana waxaan ku dadaalay bal in haddii la waayey beddelkiisa ceelashii ay ku filaan waayeen gudaha beddelkiisana in booyadahaasuna magaalada loo soo dhaweeyo biyaha taasuna dee hase ahaatee culaysunbay ayuunbay iyaduna soo kordhinaysaa markaa waxaan rajaynaynaa biidmillaahi kariim labada wiiga soo socda ay xoolu socdaan culayskaas inuu sii jiri doono oo ay qayb ka yihiin iyaguna culayskiina saaran hase ahaatee markuu culayskaa xooluhu ina dhaafo ee muusinka xashku waqtigooda uu dhammaado labadaa wiig kadib waxaan rajaynayaa biidmillaahi kariim inay wax waliba xaaladdu caadi kusoo noqon doonto waxaa kaloo inoo raacaa sidaad ka wada warhaysaan wakaaladda biyaha berberi waa institutionka keliya atee ku shaqeeya shidaalkii waxaad ka warhaysaan isaguna inuu shidaalkii qiimihiisii 2 jeer oo uu labanlaabmay qiimihiina laga siin jiray foostadu sanadkiisii waxay $80 bay ahayd maantana waxay maraysaa $200 oo dollar ilaa $210 inta u dhaxaysay maraysaa marka haamaanu ka soo qaadno miisaanka ku kordhay 200 oo foosto maanta $210 ama $200 waad garan kartaan maanta runtii halkaasna culays weyn oo miisaankiisa iyo adkaysigiisa iyo taxadirkiisa iyo garab istaagiisa laba halkaana runtii naga saaran waxa kaloo iyadana aad garan kartaan mar kastoo productionka biyo yaraado dakhliguna hoos buu dhacaa mar kastoo wax soo saarkaagu yaraado dakhligaaguna hoos buu dhacayaa qodobka kale runtii aad ka muhiimayaan bulshadeenu dareemo waxa kamid ah si loo wada socono berberi waa magaalo kulul dad dan yarina u badan yihiin ama dad shaqaalayo awood daraan shaqaale hoosaadi waxaanu biyo ku siinaa mitir cube-kii 5 foosto waa 9,000 oo shilin adigu $1 ayuu noqonayaa ma jirto Somaliland meel maanta $1 laga siinayo 5 foosto ee qofku gurigiisa iyo hoteelkii iyo meel walba oo institution kastaba maanta ku helayo maanan garan waa inaanu korino culeysyada jiray maanta na haystaana dee waa qaar soo jiray oo soo taagnaa oo maxaa la yiraahdaa dee waqti dheer dee taagnaa hase ahaatee maanta anigu waxaanu go'aansanay dunuufta maanta sixir bararka iyo maxaa la yiraahdaa dhaqaale darrada waddanka ka jirta iyo xaaladda ka taagan maanta waddanka ka taagan inaanan qayb ka noqonin bal si kastoo lagaga bixi karo anagoo kaashanayna maamulkii degmada kii gobolka iyo kii wasaaradda inaanu haddana la wadaagno oo aanu bal culayska jiray miisaanka saaran wakaaladina sidii dee loo garab istaagi lahaa geesta kale maarayaha wakaaladda biyaha ee magaalada berbera Salebaan Cabdi Looliye oo warbaahintu wax ka weydiisay sababta kayd biyood loogu sameyn laayahay magaalada berbera iyo waliba sababta biyo guure loo keenay laayahay magaalada berbera ayaa waxa uu kaga jawaabay sida tan runtii waxaan isleenahay 3 sanadoodii horta 3 bilood baan joogaa xafiiska maanta waxaan isleeyahay runtii waa dadaasheen intii awoodiin ahayna waxba lama idaan haarin ayaan isleenahay talabaadna waxay tahay maxaa qorshaa baa maanta yaala shalay tooloogu dambeysay dadka doonariska iyo dawladda sanadkan may raacino berbera bajad ugu ma jiro maaliyadda wakaaladaha inala midka ee sida Hargeysa iyo Burco iyo Ceerigaabo saddexdaba ugu jireen sanadkii hore berbera waa halbowli wakaaladiinaga waaweynaana haddii dee miisaaniyadii wax lagu daray sanadkan qorshaha koowaad ee wax lagu darayo horta waa berbera haddii aan berbera biyaheeda qorsho meel lagu tiirina waxay wakaaladi bixin kartana maaha waxay sii jiritaankeeda xataa khatar ku jira maaha xataa kaydka waxa ka weyn oo ka horeeya waa beebkuna maanta dee waxa inagu hayaa dhiigbax joogtaa kharash joogtaa iyo khatar kaloo inaanu siiba soconba karin oo istaagaba dee haddii wada burburku farabato meel walba ka burburo inaanu joogi karin su-aasha labaad oo maxaa idinka hortaagan biyahan biyo guure iyagu mar walba available-ka ee suurtagalka inaynu dee magaaladii keenno wax waliba horta wuxuu ku xidhan yahay qorshaha ilaahay iyo waqtigeedu dhammaanaya laakiin qorshaha maanta aanu ku talagalkayga waxa weeyaan magaaladii waxaan ugu dadaalanaa ugu yaraan 5 ceelo cusub iyo beebkoodii cid kastoo aanu isleenahayna maanta wuu hor yaallaa waxbay idinkala qaban kartaa waxaan rajaynayaa sanadkan intaa ka hadhay xagaagaa wixii ka dambeynayna xagaagay dambe insha allahu tacaala ku gaari doonin maxamed cabdilaahi soo fadhiistay Star TV berbera